السعادة بالتقى فاقرأ بها خبر الحياة. قصدان waxay ku saabsan tahay haweeney wax baxsatay Allah subhanahu wa ta'ala bedel qarqab siiyay waa haweeney aad u wanaagsan waxay ku dadaalaysaa inaysan umrada ka tagin sanad walba oo ay soo umriyeystay ay jeceshahay waxay nafteedu u hanqal taagaysaa mar walbana ay jeceshahay nafteedu inay soo xajiso beedka Allah haweenkii ay salaatul u taagan tahay sadaqada waa sadaqaysta wixii alle u qoray maalin maalmaha kamid ah waa maalin farxad leh waa maalmihii ciida waxay soo aaday musallaha si ay soo dukato salaadii ciida salaadii ay soo dukatay qadiibkii khudbada aqrinayay salaada kadib ayaa waxa aad u booriyay aadna uga hadlay sadaqada gaar ahaan haweenkii inay wax sadaqaystaan gabdhihii walaalaha ahaa qaar ayaa u istaagay inay soo aruuriyaan tabruucaadkii looga talagalay walaalaha muslimiinta in loogu sadaqaysto haweeneydan aan ka sheekeynayno waxay baarbaartay wax ay sadaqaysato si waxba ma aysan helin wax u dhow wa ay weysay ilaa jijimooyin dahab ah gacmaha ugu jiran mooyee jijimooyinkaasi kuma aysan qanacsanayn waxay isiri aad bay u yaryihiin kuwaani waxay soo siibtay fargashooyin dahab ah way sadaqaystay waxayna ku sadaqaystay fuqaradii muslimiinta kuwaasi oo adduunka daafiis ku kal nool kuwaasi oo asiibay ama asiibtay musiibada faqriga ugu weyn yahay markay salaada soo dukatay hawsha ay dhamaatay waxay ku soo laabatay gurigeedii maamadan waxa u timi mid kamid ah gabdhaheedii gabar ay dhashay si ay u soo booqato kadib madax ay ka dhankatay ileen waa ayeeyadeedii kadib waxay siisay hadiyadii ciida saawaaba fargashooyin dahab ah oo cusub subhanallah bal firi sida Allah subhanahu wa ta'ala bedel qarqab u siiyay walaalaheeda muslimiinta ay wax ku sadaqaysatay Allah subhanahu wa ta'ala bedel qarqab ayuu siiyay waa kaas meel aysan ka filinayn ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ka soo geliyay qisadan waxaan ka faa'iideynaa إن شاء الله إن قفكي الله درتيس وح أبحثه إن الله سبحانه وتعالى وسمال أصلا كفرين وكأرزاقه قفكي الله سبحانه وتعالى درتيس وح ألبحه وقف دونه آخر إنه جولسته أو جنهله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.